asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu isku soo noqonaysan dhammaantiin waad mahadsantihiin maanta sidaan inoogu dambeysay cashirkeenii waxaan ku ballanay inaan ka bilowno the simple present versus the present progressive simple presentiga iyo present progressiveka simple present xilli la joogo oo simple time ah iyo xilli hadda aan joogno oo progressive oo horey u socoto okay waxaan ka bilaabeynaa waxaan leenahay he eats pancakes every morning so waxaan soo baranay simple presentiga verbka inuu s qaato aan ka hormarino verbka ka hore aan isticmaalno subject anagoo ku xijinayno verb kadibna aan u dambaysinayno every morning every day every month every year like that okay statement ahaanaan ku bilaabeynaa marka hore markuu statement yahay markuu question yahay iyo markuu negative yahay aragna marka in statement form simple presentiga iyo present progressiveka farqiga u dhaxeeya iyo waxay wadaagaan aan ku sheegaya statementiga waxaan dhahayaa he eats pancakes every morning he eats pancakes every morning waa statement a simple present ah David rides every day waa simple present present progressive kiisaan fiiriye marka he eats pancakes every morning so he eats Sunday verbki esaan ku daray every morning waa habitual activity ama wax daily dhaca waay habit or usual activity daily dhaco laakiin present progressive waxaan dhahayaa he is so verbka maxaa ka soo hormaray verb b ah meesha ka soo hormaray so he is eating so verbki marka verb b ga wax ka horeey ama main verbki waxaan ku daraynaa ing he is eating pancakes right now David rides every day David is riding right now so simple present markay tahay always waa habit or usual activity wax caade ama everyday ama activity maalin kasta dhacdo waay laakiin markay noqoto present progressive action is now actionka happens right now ficilkaba wuxuu dhacayaa isla marka ayada ah ficilkaba wuxuu dhacayaa isla marka ayada ah action happens now okay question markay taan fiirina marka does he eat pancakes every morning Does David ride every day? Or question. Okay. Is he eating pancakes right now? Does he eat pancakes every morning? Miyuu cunaa pancake ama canjeerada pancake la yidhaha subax walba intan waxaa leeyahay miyuu cuni hayaa pancake hadda okay does David ride every day? David miyuu kaxeeyaa maalin walba okay is David riding right now? David miyuu kaxeynayaa hadirtan so simple presentiga markay question tahay waxaan adeegsanaa do and does as helping verb do and does aan u isticmaalnaa helping verb laakiin present progressiveka markay tahay waxaan adeegsanaynaa am is iyo are in question form taasoo ku salaysan am is iyo are qaabka hadduu shayga prog ayuu yahay singular ama plural okay questionka ka imaanay negative kaanu imaana marka I don't ride my horse every day aniga ma kaxeeyo faraskayga maalin walbo he doesn't exercise every day she doesn't exercise every day ayada jimicsi ma samaysa galab maalin walbo so okay I am not riding my horse right now so hadduu simple presentiga ah I don't ride my horse every day present progressive muxuu noqonayaa I am not riding my horse right now so every day maalin walba right now hadirtaan so kan hadduu ficil every day mar walba dhacayahay kan markaas buu dhacayaa bis waa lagu kala baxaa okay she doesn't exercise every day she isn't exercising right now hadda may exercise garanayso so waxaan adeegsanaynaa not and not so in the simple present the negative we use do or does as a helping verb but in the present progressive waxaan adeegsanaynaa am is are in negative okay let's practice waxaan adeegsanay ereyga walk Rodolfo dashed to school every day okay Rodolfo walks to school every day right now he is dash with Amy he is walking ing raacaysa right now haddaad aragto ing filo kaliga haddaad aragto every day s inay ku darto verb filo she dash her grandmother every week she calls her grandmother every week right now she is calling her
Okay, my daughter dash soccer every day. She dash soccer right now. I do not dash soccer every day. I dash every day. meesha waxaa haysta play and cook. Play intaasa loo qaybinaya. Cookna halkaana galaysaa. My daughter dash soccer every day. Plays soccer every day. She is playing soccer right now. I do not play soccer every day. I cook every day. I cook every day. Okay. aan ka socono marka aan ka soo dhamaano isbarbardhigii simple present iyo present progressive. hadda waxaan u galaynaa waxa la yiraahdaa non action verbs not used in the present progressive. waxaa jira verb oo non action la yiraahdaa, midna verb ficil sameeyo waaye, midna verb ficil la'aan waaye. so ana loo adeegsan karin present progressive ka. tusaale, I am hungry right now. I want cakes. aniga waan baahanahay, waxaan u baahanahay cake. so hungry waa non action. okay, verb wuu yahay laakiin waa non action. ficil wax loo jeedo maaha, baahida ku haysa wax loo jeedo maaha. I am thirsty right now. I want some water. waan baahanahay xilliga hadda la joogo. I want some water. waxaan u baahanahay wax yaro biyo ah. so I want some water hadday tahay qofka haddana uu ooman yahay. I am wanting some water lama dhahayo. sababtay tahay ing ma qaato, waa non action verb la yiraahdaa. ficilkan ficil loo jeedo la arkay maaha. rabitaanka lama arko, jaceylka lama arko, nacaybka lama arko. wax walba la arkayn in ficil la qofku uu sameeyo ficil ah ayaa waxa la yiraahdaa non action verbs. okay, so not used in present progressive. so non action verbs want physical or emotional needs. so wixii qofka jir ahaan ama dareen ahaan uu u baahan yahay. so kaama rabaan wax ing inaad ku darto. okay, some common non-action verbs maxaa ka mid ah non-action verbs-ka ama verbs-ka non-action-ka ama ficilada aan lahayn oo aan ficilka ahaan lagu sameynayay. one, dislike waa nacayb. hate, dislike waa shay ad like iyo dislike kaliya, waa ka hel iyo kama helin, ka heli la'aan waay. so hate nacayb, like ka helitaan, love jaceyl, need rabitaan, want need waa u baahnaasho, wantan waa rabitaan. intaas markaad aragto dhammaantood ma qabaan wax la yiraahdaa action verbs, ma wax ficil ku dhacay, ma waa wax qofku u baahan yahay physically jir ahaan ama emotionally dareen ahaan, laakiin wax maanta la taaban kara maaha. okay, I smell a skunk. do you smell it too? smell, so smell wax baad shiirinaysaa laakiin waxa taaban kartaa wax u jeeda maaha. smelling, are you smelling it too? ma dhays. okay, waxaad leedahay do you smell it too? so non-action verb smell is a sensory experience. so not used in present progressive. other common non-action verbs waa hear maqalkii, non-action verb waa see araggii, waa non-action verb. smell uruskii, waa non-action verb. taste dhadhamiskii, waa non-action verb. believe waxa waaye yani waxa qofku uu aaminsan yahay. no ogaansho ama aqoonis. think ka fikiritaan. understand fahan. intaba waa non-action verbs. okay, we dash that today is Javia's birthday. Javia and James dash at the birthday cake. Javia dash out the country. so no, look, blow intaad ka qaadanaysaa. we dash that today is Javia's birthday. we know that today is Javia's birthday. Javia and James look at the birthday cake. are looking at the birthday cake. Javia and James are looking at the birthday cake. Javia dash out the candle. Javia blows or is blowing. so Javia is blowing out the candle. is blowing ing ficilka haduu dhacaya, kan he is looking ficilka haduu dhacaya. Miriam is at the beach. she dashed the salty air. she dashed the seagull singing. she dashed to stay at the beach forever. smell, hear, want. Miriam is at the beach. she dashed the salty air. she smells the salty air. she dashed the seagull singing. she hears the seagull singing. she wants to stay at the beach forever. Miriam is at the beach. Miriam waxay jirtaa beachka. she smells the salty air. waxay carafsanaysaa
biyihii cusbaysnaa. She hears the seagull singing. Waxay maqashaa seagull shimbirahana la yidhaahaa heesahooda qaabkay u heesayaan. She wants to stay at the beach forever. waxay jeclaysatay inay iska joogta xeebta abidan. tan iyo kulanti daba xiise leh maalinkan u gudageli doona hadduu allaha awoodda la qadaro ereyada sida ah see, look at, watch, hear and listen to. waxaan idinkaga tagay sidaa iyo nabadgelyo. fadlan sii sheergaya cashirka si uu gaaro asxaabtaada wanaagsan iyo ummadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.